waa si wanaagsan heestaas waxaa la dhahaa najax waxaa la dhahaa sidana qaayar roobkani cawdiisa nasab weeye nasiibkaygu tooysiiyey waa naruura arageeda lagu naaxo niyadayda magaceedu ku noqnoqoy waa naruura arageeda lagu naaxo niyadayda magaceedu ku noqnoqoy. kulanti wanaagsan daawadayaal, halkan waa Fagaare Entertainment. waxaad naga daawanaysaan barteena YouTube-ka. intaan muuqaalkana gudagelin like saara si uu dad badan u gaaro, sidoo kale subscribe saar YouTube-keena, kadibna furo gambaleelka si uu kuugu soo dhaco muuqaal kasta oo aan halkan soo dhigno. nafarkale lama siima najaxdayda ubadkaynu jisaana dhaxyaala nitaqiyo maquro wax nugleeya gabdhaha Soomaaliyeed ma jecla in la guursado gabar kale, dil ama geeri ayayna ka xigaan. haddaba waxaan halkan kuugu soo qaadan doonaa ama kuugu soo bandhigayaa arrintan baraha bulshada aad u qabsatay ee ku saabsan kala taga ama furiinka Xariir Axmed iyo Najax. marunbaa mise waa been mise waa lala guursaday Najax. waxaan kuu soo gudbinayaa Xariir Axmed oo muuqaal uu iska soo duubay iyo qoraal uu soo dhigay barta Facebook kaga hadlay in aysan kala tagin marnaba xaaskiisa Najax oo ay weli isqabaan, isla markaana Xayaad Cabdixakiim ay tahay xaaskiisii labaad oo uu yeelanayo. waxaa jirta xaas cusub oo uu yeeshtay fanaanka Xariir Axmed. gabadhaas magaceedu waxa lagu sheegay Xayaad Cabdixakiim, waxaana meherkooda uu ka dhacay sida baraha bulshada sawiro la soo dhigay ay muujinayeen magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland oo uu fanaanka maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa. Xariir Axmed iyo Najax sanado badan ayay isqabeen oo ay isjeclaayeen. Xariirna waxaa la sheegayaa inay kala tageen gabadhaasi Najax, wuxuuna guursaday ama mehersaday gabadhan cusub ee Xayaad la yiraahdo. qoraalkiisa Xariir Axmed wuxuu ku yiri, anigu runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan taageerayaasheeda iyo asxaabteyda aan qanciyo, sidoo kale waan jeclahay xaajiyadeydii hore ee Najax. waxay ahayd mid aan mar walba ammaan u qaadi jiray, heeso ammaan ah u soo saari jiray. ma aha taasi micnaheeda in aan ammaantii aan u qaadi jiray in gabar kale aanan guursan karaynin, laakiinse waxaan calaf isku yeelanay Xayaad oo ah xaaska labaad ee waqti xaadirkan aan yeelanayo. hadalkan ayaa ka dhigan in Xariir Axmed aysan kala tagin Najax, isla markaana uu weli qabo uuna jecel yahay xaas labaadna uu yeeshtay. fanaanka Xariir Axmed ayaa sidoo kale heeso ammaan ah u qaadi jiray xaaskiisii Najax. sida nuuca xural aynta najax weeye nimcee banasri nolol weeye nalka wayadaya eegan nuurka siiya naxariista hadalkeedu waa nasteexo ku nasto nikaaxeedu farax weeye naxariista hadalkeedu waa nasteexo ku nasto nikaaxeedu farax weeye. nafarkale lama siima najaxdayda ubadkaynu jisaana dhaxyaala nitaqiyo maquro wax nugleeya. waa tahay daawadayaal, haddaad muuqaalkan ka heshay like saar una sheer garay asxaabtaada. nafarkale lama siima najaxdayda ubadkaynu jisaana dhaxyaala nitaqiyo maquro wax nugleeya.